بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وبعد marka ugu horeyso waxaan aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamul goboleedka Hirshabelle ee nagala joogaan xubnahan sharafta leh labadan xubnood iyo iskaashatooyinka beeraleyda wargaab ee beeraleyda yaryar ee sida aad iyo aad u wanaagsan loogu haqabtiri baahidooda in beerihii loo falo abuur loo keeno greenhouse-kan ee muddo badan aan ku taamayn haddii aan iskaashatooyinka nahay in naloo sameeyo ay wasaaraddu iyadoo kaashanayso deeq-bixiyaasha ay magaciisii iska kaalmaysteen noona dhiseen waxaan ugu mahadnaqaa mar koowaad iyo mar labaad anigoo ku hadlaya dalladda iskaashatooyinka beeraleyda degmada Balcad ee Al-Naciim guddoomiyaheedana ah isla markaasna ah guddoomiye ku-xigeenka ururka qaranka iskaashatooyinka beeraleyda Soomaaliyeed magaca guud ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed anoo haddana ku hadlaya codkiisa waxaan u mahadnaqaa deeq-bixiyaasha iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Hirshabelle oo iskaalmaysteen noona qabteen waxqabadkan quruxda badan leh greenhouse-kan iyo beerihii maanta aan soo arkayn ee beeraleyda ay ka mahadnaqayeen yaryar loogu kaalmeeyo abuurka iyo beerafalka maadaama ay muddo dheer ay ku soo socdeen jilaal iyo dhaqaale xumo wabi la'aan intaba ay la soo kowsadeen haddana waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aan ugu mahadnaqayaa wasaaraddeena sharafta leh ee nagala socdaan xubnahan dhalinyarada ah ee sida aad ugu dadaalay inay iskaashatooyinka yaryar kaabeen wax walbana ay u qabtaan waxaan leenahay jira ee jooga dadaalka aad wadaan waa dadaal aad iyo aad degmada waxtar weyn u ah qaasatan iskaashatooyinka yaryar ee beeraleyda degmada Balcad waxaan haddana aan sheegaa oon ka caddaynaa meeshaan waxqabadka inuusan ku ekeen tuulada wargaab ee Balcad tuulooyinkeeda inta ay ka kooban tahay ee wax ka qabatay wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle ayadoo kaashanaya deeq-bixiyaalka caalamka waxaan rabaa wixii ay qabteen oo aan u jeedno sadar muqo su'aal ka dhanay intaasoo tuulo ay beera ka faleen webiga ka dhinacaas iyo ka dhinacaanba labada dhinac webiga dacaladiisa inta Balcad ay ka kooban tahay ay ka shaqeeyeen ay dhiibeen wixii qarash ahaa ee beerihii lagu fali lahaa maadaama dadka ay dad tabar yar ay yihiin aysan waxba qaban karin ay jiilaal dheer ka soo baxeen webiga sida ogaa uu yahay iska af angegan yahay beerihii abuurkooda la dhiibay maadaama waa dareemi kartaa beertu hadday gu iyo deer ay aaran tahay tacbanto ninka beeraleyga ah iskaashatada abuurkiisa waa kaydsan karaa laakiin mar haddii jiilaal dheer uu soo galo abuurka in la cunay tagaysaa maadaama beerta jiilaal ay tahay aysan waxba tari karin maadaama abuurkii ay ka saaciday ee cagafta ka saaciday waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xubnaha sharafta leh ee ka socda wakiilka uga ah degmada Balcad wasaaradda beeraha iyo waraabka oona ugu horay injineer Isgoobe wasiirkii wasaaradda beeraha wasiir waxaan leenahay hambaliyo maalin alla maalinkii lagu doortay iskaashatadan waa maalintii ay ifka ka soo baxday ee aad magaciisii soo garab qabatay iskaashatadii degmada Balcad horta wax iskaashato ah ma jirin ninka soo saaray adiga ahayd haddana dib markii lagu soo doortay in lagu soo celiyo kursigaaga ee wasiirnimo haddana beeraha iskaashatooyinka waatay ku soo hambaliyeen waxayna ogaayeen in waxqabadkii iyo hufnaantii iyo kartida iyo raganimadii awal aad wax ugu qabatay inaad dib wax ugu soo qabanayso ballanqaadayna waad fulisay oo greenhouse-kan maanta aan ku jirno oon ka hambalyeynayno sababteeda adigaa iska lahayd wasiir waana ku mahadsan tahay waxaa lagaaga fadhiyaa inaad greenhouse-ka inaad bayso greenhouse-yaal aad ka dhigto inaad iskaashatooyinka wargaab wixii loo qabtay oo greenhouse ay u baahan yihiin iskaashatooyinka 32 iskaashato ee dalladda Al-Naciim ku midaysan ee degmada Balcad ka howlgalo eed ogtahay waxqabadkoodii ka soo qayb qaatay meel alla meesha u baahan in wax laga qabto oo beeraleyda yaryar haddii la taakulayo beeraleyda yaryarna waxaa imaanayso in ay degmadu dhaqaale hesho degmada hadduu dhaqaale heshana gobolka dhaqaale helaayo maamul goboleedkana dhaqaalu helaa markay ruuxa hadduu shaqaysto ee la garab qabto berita canshuura laga helaa kaalmaan laga helaa laakiin hadduusan waxba haynin wax laga helaayo ilaahay abuurta ma jiro waxaan ku soo koobayaa wixii aad noo qabateen waa idinka mahadnaqnay waxa aan u baahannahayna ilaahan ka rabnaa marka ugu horeyso marka labaad wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle oo wasiirkeeda yahay mudane Cali Xaaji Cabdulle Isgoobe iyo xubnaha sharafta leh ee hadda nagala joogaan
aan rabna inaan magaciisa u sheegno uguna fadhino in beeralayda yaryar ee iskaashatooyinka ah ee ku bahoobay dalada Al-Naciim ee degmada Balcad ka howlgala inaad waxaad hadda u qabateen usii laba laabtaan matooraha aad u keenteen